wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyay safarro shaqo ku marayay qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa maanta soo gaadhay magaalada madaxda gobolka Daah ee Weyne waxaana wafdigan duuleedka magaalada Weyne ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daah maayirka degmada Weyne iyo qaar ka mid ah xildhibaanada iyo dhalinyarada gobolka soo dhaweyntaas kadib waxa uu wasiirku u furay tartan dhanka kubadda cagta ah qaar ka mid ah naadiyada heerka koowaad ee ka jira magaalada Weyne waxaana munaasabadda furitaanka tartanka horeyntii ka hadlay agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaradda iyo isduwaha wasaaradda u qaabilsan gobolka Daah iyo waliba qaar ka mid ah oqaasha deegaanka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa abaad wasiirkaaga mahad celinaa adigii agaasimo waaxdii iyo tiimka kula socdaba ina noo dhagax dhigi doontaan garoonkii magaalada Weyne oo in badan ay naawilayeen dhalinyarada magaalada Weyne iyo guud ahaan gobolka Daah ay naawilayeen oo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu ballan qaaday in la dhiso miisaaniyadii horena lagu daray barka kale ka dhimana wasiir oo aad nagu dartay imika sanadkan iyana waanu kaaga mahad celinaynaa mudana wasiir kooxaha gobolka Daah ka dhisan iyo dhalinyarada gobolka Daah waxay taageersan yihiin xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxay taageersan yihiin siyaasadda uu ku hagayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland siyaasadda adigu aad wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ku hagayso gobolada ugu sareeya wadankeena Somaliland marka maanta waxa farxad noo ah in wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu uu fulinayo siyaasaddii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu ku soo ololeeyay ee ahayd in dhalinyarada la horumariyo wasaaraddu sanadkan halku dhag bay samaysay halku dhaga sanadka ciyaaraha la yiraahdaa ciyaaruhu way soo noqonayaan kuwan maanta uu noqon maayaan gobol walbana ciyaaraha waa laga qabanaya gobolada intoodii badnaydna waanu maraynaa qaarna waan soo marnay marin lahaa aad ku talaabsatay aad baanu kaaga mahad celeynaa mudane wasiir waxa kale oo aan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ugu mahadnaqaynaa waxqabadka ballaaran ee gobolka Daah muddadii sanadka iyo 8 bilood uu talada hayay uu noo hirgeliyay oo ay ka mid tahay taa maanta loo dhagax dhigayo stadiumkii Weyne ee gobolka Daah dhalinyarada reer gobolka Daah waxaan ugu baaqayaa inay yihiin dhalinyaradii ugu nasiibka wanaagsanayd waayo waxaan ku garaadsaday garoon kan yar oo wali lagu ciyaaro ayaan ku garaadsaday dhanka kale waxa iyaguna madashaas hadal ka soo jeediyay maayirka degmada Weyne Cabdixakiin Nuur Muuse iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daah Maxamuud Cali Axmed Jubba waa markii koowaad ee miisaaniyadda loo geliyo sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliya waa gobol nabdoon waa gobol aan macaarid joogin waa gobol aan runtii aan ku milmin siyaasadda media waxyaabaha la isku mariyo waxaan ka hadalnaa khaliya maalin waxna loo dhagax dhigayo iyo maalin xariga ka jarayno mudane wasiir dhammaan waxaan aragnaa adoo gobolada dalka oo dhan soo marayay waxa farxad noo ahaa dhalinyarada inta ugu badan dalka waa 70% waxaan leeyahay dadka ugu faraha badan la Somaliland mudane wasiir adiga xukuma ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Somaliland mudane Boosmire oo hadalka soo xidhay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa jirta guddiga qandaraaska imika markaan galaa loo gudbinaya bishan gudaheedu bilaabmaya bishan gudaheed lama waxba la dhigay waxaan madaxweynaha ballan qaaday halkan uu ka ballan qaaday ballanqaadkayguna waa inuu fulo haddeen marka la saacanood ka soo noqdo maayirka iyo barasaabka waxaan u sheegayaa inaan qori doono waraaqdii guddiga qandaraaska cidii ku guuleysatay idin dhisi doonta maxamed cali ahaa ilaa lagu guuleystay waddankeeda kale waddankan waa inay ilaashataan waxba dhageysanayaan waa la dilay waa la dhacay wax ay kaasla